marka waxaa loo baahan yahay in la yimaado meelaha wax lagu baranayo si wax loo barto oo dalka horumar loo gaarsiiyo. And then now the price of the young oqorada hadda ka baxaya ardadan ayaa loo diyaariyey. The one year you have spent مثلا توبركن يبكى تكون جميل إنسان ما هاي نروح بدن مرتين وبلو. You have been given the skills to help you to learn the profession. وحنا نصور حرفضة على صور الذين بري إن كل شغلتك تان أما أروح بنصور بحرام. You have also been given the responsibility to go and make a change in society. واللي هو حكى الذين بمسؤولية ده سواء إن تبدل سمايسان تبدل كاسنا أو كوسا ماينسان نلا شيء أكو تشتين مركي هذا أدو مريجسان غلطة. Whether it is plumbing, whether it is photography, electrical, TVA, or masonry, I want to tell you one thing. There is no bad profession. waxay ka wada sameeyeen xirfadaha soo qaateen ama ha noqdaan umulisan dhaqameedka ama ha noqdaan hoostaalada nijaarada kuwa dabka bartay ama electricity-ga waxay ka wada sameeyeen inay dhammaantood wada yihiin xirfad la barto oo qof ku shaqata. All those professions, the people of Burma, the people of anywhere in the world need the services to live a comfortable and dignified life. So you have got a role to play, an important role to play in society. waxay taasi idinku jiidaysaa ama idinku leegaraynaysaa buu yidhi in hadduu qofku xirfad la yimaado ama uu wato in uu isbeddelka uu sameeyaay uu wax ku tabeeyo magaalada boormeedka nooshihiin iyo takaleega adduunka sida dadka adduunka ay u leeyihiin heerar ama shaqooyin kala gaara oo ay noloshooda ku horumariyaan. taasina loo baahan yahay qof waliba uu ku noolaado nolol wanaagsan oo dhammaystiran dhinac walba. The only bad job is that one which destroys the community. shaqada xun oo baa taburburinaysaa baddiga socodka ku ah mujtamaca. Have you been taught to destroy the community? wali nala hadasheen dadkiina ma ka hadasheen arrimo noocaas? The answer is no, definitely. jawaabtu waxay cagsi cad u tahay inaan waxaa uga soo hadalqaa inama aynan ka wadaaway. So go out, use the skills you have acquired, and develop your profession into a dignified, respectable profession, and you'll be proud of it. We are proud of you. aad baan idinku haweenaha inaad kartidiina iyo aqoonta qaateen aad u bandhigtaan mujtamaca aad ku nooshihiin ood dhex gashaan ood kaga shaqaysaan waana tahay aadka ugu hanjaweyn lahayd ee bilowgayna. I will pay a special tribute to the lady who has completed the course in the plumbing. Is it plumbing? Yes. waxaan si gaara waxaad ugu celinayaa gabadhii xirfadda qalabka biyaha ka qaran jabisay halka ku jirtay. May I ask her to stand up for special recognition? I want to say that we are proud of you as NRC. waxaan doonayaa inaan ku idhaahdo aad baan ugu faraxsannahay inaad xirfaddaas ka qaran jabiso. You have made a very big step for the women, not only in Burma, in Yemen, not only in Somaliland, but in all the African continent. You break the barriers that have been left for men previously. waxaan aad ugu faraxsannahay ku siinaynaa attentionka udaween bidaar waxa weeyaan inaad keliya ma tihid inaad gobolka xirfadda ka baratay keliya ma tihid inaad xirfaddan qof gabadh oo ka baratay aad tahay laakiin waxa aad aan ugu faraxsannahay inaad tahay qaaradda oo dhan gabadh tusaale u noqonaysa. Because of her courage, has been a will arrange to give special
ilaahay. When you visit the home and you are served a very nice meal, don't forget the somebody in the kitchen. markaad guriga tagtaa wiil qado fiican ay idin karto oo macaan qadadaa fiican ay macaan xaylooda inuu qof kaliya uu joogo qadaha. The kitchen for you has been Ayodhya. kitchenka lagu soo kariyey yabkan ama mashruucan waxaa waqti badan lagu soo saaro waa Ayodhya. Our colleagues in Ayodhya have been very professional. saaxiibadeeda injooda loo qakeeya Ayodhya waa niman kartidoodu aad u saraysiya aqoontooda ay u leeyihiin inay u qabtaan. As NRC, we are very proud to have been working with Ayodhya, and we will look forward to working with you for more years to come. waxaanu aad ugu haweynahay inaanu Ayodhya kala shaqeyno mashruucan oo aan kala shaqeyno weliba muddooyinka fara badan oo soo socda haddii ilaahay. Thank you for the good job. Then finally, those who have made the effort to make this occasion success for us, the team from NRC, thank you very much. waxaan ugu dambeyn shaqaalaha ayaga NRC iyaguna dheerka oo ah hay-adda iyadu inay ka fuliso as international NGO mashruucan yarka. waxaana deeqa bixisaa hay-adda dowladka loo yaqaano sida waa dowladka ama wada bixiyaha loo yaqaano wadanka Sweden ama Swedishka. waxaan haddana kusoo dhaweyn lahaa iyadoo waqtigayga haybo uu iska kooban yahay oo gabagabaysiga jirno madaxa hay-adda NRC ee Somaliland Mr. Kennedy oo Hulu Oda. As anyone says, like my brother Charles, he's not called Muhammad Charles because he's able to speak fluently in Somali. I just want to take this chance to recognize the presence of the Deputy Governor and also the presence of the very important person, the REO, and I see the presence of all the visitors, the parents who are here, the business community who are all the students who are now graduating after undergoing the year training. I want to say that this is your day because you have been laboring, learning, trying to acquire the skills, and this is a day you have to celebrate because it's a special day for you. We have all come to see you transforming yourself. waxaan salaamayaa buu yidhi gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka, waalidiinta, qaybaha kala duwan ee bulshada ee halkan joogtaan. waxaanan aad u ixtiraam ugu haynaa buu yidhi xubnaha dowladda gudoomiye ku-xigeenkii aadooga oo ah laba tiir oo suuro geliya inaanu hoosdeynta gudubda aanu sameyno iyo horumarkan kale ee mashruuca. waxaa kaloo idiin sheegayaa buu yidhi in ardaydiina dhalijabinaysaa ee halkan fadhidaay aad nolosha intaad meel ka soo bilowdan aad meel kale u socotaan meeshaa kale oo ah meel horumar weyn aad ku gaaraysa. I just want to use this opportunity to pass a few messages, of course, to the authority and also to the learners who are graduating. waxaan doonayaa inaan fariimo dhowra ugu soo gudbiyo buu yidhi ardayda dhalijabinaysa iyo xubnaha dowladda ee halkan fadhida. As Charles put, I think we as NRC were very proud to have our programs in Burma, and this is because of the great support we get from the authorities here, including the IDO's office. waxaan aad u faraxsanahay haddaan nahay NRC Somaliland in taageerada buuxda ee ayna siiyaan xubnaha dowladda, gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo gudoomiyaha waxbarashaduba ay tahay mid aan la soo koobi karin. taasina ay ku liiri garanayso ama ay u hogaaminayso dadkan reer Boorama horumar.